cabdi cumar ayaanle waa wiil yar oo ka dhashay qoys tan yar ah oo dhibaato weyn ka haysato dhinaca madaxa. Waxa uu cad weyn ka soo baxay dhinaciisa midig ee qanjaha. Sida daawadayaal aad arkaysaanba wiilkan dhibaatadu ka haysato dhinaca midig ee madaxa. Waxa uu ku nool yahay ceelka Qoryaale waxaana uu xanuunka la jiifay muddo laga joogo sanad iyo dhowr bilood. Waxaana haddaba daawadayaal wiilkan yar ee dhibaatada ba'an ka haysatay dhinaca wajiga ee bidix. Waxa uu inooga baahan yahay inaynu u gargaarno una gurmano walaalaheena caynkan oo kale u dhiban. Waa wiil yar oo ka soo jeeda qoys tan yar ah. Waxa uu aabbaha wiilka dhalay oo lagu magacaabo Cumar Ayaanle Faarax ugu waabay kuna hayaa geed hoostiisa isagoo ay aad u adag tahay inuu helo kharash yar oo ku daaweeyo wiilkiisa. waxa aabaha wiilkan dhalay uu noo sheegay in haddii uu kharash u helo uu ku daaweeyo wiilkiisa wax lagaga qaban karo dalka gudihiisa. dhinaca sanka ee wajiga wiilkani waxaa soo gaadhay cadka weyn ee ka soo baxay wajigiisa dhinaca midig waxaana awdmay qaybo ka mid ah labada dalool ee sankiisa iyo dhegta midig oo uu ka soo baxay cadkaasi weyni. waxaa wiilkani xanuunkan qabay muddo laga joogo sanad iyo dhowr bilood sida uu noo xaqiijiyay aabaha dhalay wiilkani. meelo badan oo dhaqtarrada soo maray meel kasta waxa ahaatay dhaqtar meel kasta imka waana geedka hoostiisa isku eena halka ceelka Qoryaale meesha muslimiin wax lagu tali kariyo hadii caawimo wasiga baahnaa idano oo baahnaa wixii waxtar halkaas man ilaa iska rijirinam. sidoo kalena waxa warbixin naga siiyay wiilkan dhibaatadu haysato dhakhtarka gacanta ku haya wiilkani oo u qabtay intii karaankiisa si tabarucaad balse hadda ay arinta wiilkani ka xoog badatay. أنا يرادو دباتيسن إن بدنا حنوسني مركا تحنون كادر كسانة قنشها كقدر دعي أياك دعي إلى سانك إلى دانك أنت صادن سامي مدة مكانك تشوفين هذه حقوق بهاي رخاتير دي وحكا قواتها ودبد مركا إن شاء الله ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta aan ka codsanayna waxay ku soo tari karaan ilmaha dhibaatada Ilaahay ku imtixaamay inay ku soo taraan. haddaba daawadayaal dhammaan muslimiinta adduunka joogta gaar ahaan kuwa Soomaalida meel kasta ay joogaan waxaa waajib inagu ah inaynu caawino walaalaheena dhiban. Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waa uu isku eegayaa ummaddiisa sida ay isu caawiyaan. haddaba daawada ugu deeq wixii aad kari karto wiilkan danyarta ee dhibaatada caafimaad darro ka haysato madaxiisa uguna soo hagaaji lambarada shaashada kaaga muuqda.